Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ka hortagga iyo daweynta xumadda ama la tacaalidda durayga iyo aynu nidhaahnay ka hortagga ama daweyntaba durayga 19 ama COVID-19 hadba sida loo yaqaan. Maanta in yar waxaan doonayaa inaan dul istaagno kolley deegaan ahaan Soomaalida, dalka Soomaalida, deegaamada Soomaalida xanuunadan COVID-19 oo si noocyo badan muddooyinkii faraha u dambeeyey aad moodaysa inay ugu soo fara badanayeen xumado kala jaad ah ama xumado kala duwan oo qaarkood COVID-19 aan noqon duray iyo calaamadihii COVID-19 kana si ugu muuqda ama si aad u moodaysa inay u leeyihiin 3-4 tallaabo haddaad qaado waxaan rajeynaya kolley in ilaahay kugu guuleyn doono niyaddan aad khayr ku qabato waxaana rajeynayso inaad ku guuleysato inuu ilaahay ka qaadi doono xanuunka ama yacni waa dawo dhaqameed ama dawooyin caadi ah oo qaarkood nabiga caleyhi salatu wasalaam sheegay sunnihii nebiga ka mid ah. Tallaabada koobaad haddii aad soo qaadid basal oo aad toonna soo qaadid bahasha toonta la yidhaaho aad jarsatid basashana jarsatid kadib aad weel ku shubto jabcad biyana ku shubtid bahasha xabaasuudda la yidhaho xabadda sawdaa teeda midhaha ama teeda qallalan aad soo qaadid iyo xoogaa yar ku darto waa haddii aad helayso, laakiin maaha daruuri. Inta daruuriga ah haddaynu ka tilmaamo ama ka soo qaadano waa basal iyo toon iyo bahasha loo yaqaano sinjibiisha teeda daqiiqda ah ama shiidan. Haddii haaf malqacad aad ku darto biyaha aad toonta iyo basasha ku jarjartay, haaf malqacad ama malqacadba sinjibiila, xabadda sawdaana haddii aad helayso aad ku darto teeda midhaha ah, sidoo kalena aad qorofal bahalka la yidhaaho qorfal dhagoole ama dhagayare siday hadba Soomaalidu taqaan isna aad raaciso, aad soo qaado bahalka bayliyaha la yidhaaho ama kelliga dabka ee biyaha lagu beeliyo ama shaahba lagu karsado. Haddii aad daba helaysina aad dabka aad weel intaad saarto wixii oo dhan aad isu wada geyso biyana ku dartay aad saarto, kabacdi markay isku karaan ee kar ay yeeshaan ama qiiq aad ka qaado, intaad soo qaado haddii aad isku uumis markaan leenahay oo markaad ama buste ama go aad soo qaado hadeetana aad hoosta ka gasho adoo xarakaad ama samaynaya ama sidii qof naqaska qaadanaya naqaska aad soo jiido marna aad dib u celiso ilaa muddo 5 mirir ah. Dhidid waaweyn uu kaa yimaado xaaladda kadib dabcan kolley saan u filayo kolley waxaan soo tijaabiyey kolley dad badanna arkeen. Waxaan rajeyn doonaa kolley inaad waqtiyadaa haddii alla qoray wax walba oo qoraalka alleh inaad xumaddii ama xanuunkii ku hayay caburkii ay kaa kala degi doonaan. Dawadanu waa dawo lasoo hubiyey kolley dee kala jaban iyo kaniina kalun bay naqaanaa inuu caburkay ka qaadana iyo durayga ama xumadahe waa dawo koobsanaysa haddii xumad ku hayso, haddii naqasku qabanayo iyo haddii caburku hayo usanku ama ku cabursan yahay, sidoo kalena dhago ku xidhan yihiin. Taa dhagahana iyadana waxaynu ku daranaa bahasha toonta la yidhaaho dad habeenkii markaad sii seexanayso intaad googoyso iyadoo laba intaad kala goyso aad dhagaha geliso dabcan waxay soo nuugaysaa dhagihii guuxii ama wixii ku xidhnaa, iyaduna xagga dhagahii aad ugu wacan tahay. Insha allahna isla markaana waxaan rajeyn doonaa iyadana inaad dawo ka heli doontid. Sidoo kale waxaan dul istaagaynaa iyadana haddii aad joogto dalkii hooyo ama waddan Afrikaana ama waddamada Carabta ah, waddamada qoraxda laga helo, oo aad xaalad duray ama xaalad cabureed oo COVID-19 ama aad xumad ku sugan tahay xaalad xumadeed, waxaad samaysaa marka ugu horeysa tallaabada koobaad soo maydho kabacdi
haddii aad helayso qoraxda 30 minute ama 20 minute waliba qorax duhurnimo ama qorax galbeed ay Soomaalidu waxay tiraahdaa habaraan ku dhalin qorax subaxeed labadaba kaama naxaan. Qoraxda subaxeed kolay aad baa looga daydiyaa laakiin haddii jeer dadku waxay dhahaan qoraxda duurkii iyo casarkii baa wacan sidoo kale dhiigaagii baa furfuraysaa waxaa laga yaabaa xumadii faraha badnayd taana waa mid ka soo tijaabiyey. sidoo kale dadka iyaguna xilliyada wadamada barafka jooga iyadana waxaan odhan lahaa taa oppositekeeda ama bilcagsigeeda ama dhigeed oo ah intaad soo maydhato marka ugu horeysa mar labaadka qol aan hawo badan lahayn ama meel qabow badan aanu ka dhacayn gal busta hoosta ka gal dabcan waa dididiisa waxaa laga yaabaa xumadii faraha badnayd adigoo raacinayana ku dhaqmayana niyadii wanaagsanayd iyo khayrkiina waxaan ku caafimaadasho mar walba dawada marka ugu horeysa waxaan inaad ku caafimaadayso Ilaahay tawakkal saaranaya sidoo kalena niyadii khayr gashanaya ama waxay shay tahay ugu dhaqmaya insha Allah waxaan rajayn doonaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan dawo fiican aad ka heli doontaan markaad Ilaahay tawakkal saarataan xaaladahana aad la timaadaan iyo tallaabooyinkan kulay wuxuu Ilaahay loo tawakkal saartaa dabcan niyada wanaagsan mar walba wadada guusha kama dhacdo khayrkuna waa niyada wanaagsan iyo tawakkal saarashada Ilaahay tawakkal saarnaso Ilaahay aad u istiqaal dhiibanayso.